Yo. Drop it low. Yo. Drop it low. habeen wanaagsan daawadayaal meel waliba oo aad inagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka baraha bulshada RTN oo toddobaad waliba xilligan oo kala si toos ah uga daawataan xarunta TV-ga magaalada Nairobi anigoo Farxiyo Cabdalla Muumina ayaa aalaabaha barnaamijka idin la socodsiiya balse caawa martida barnaamijka yaa waay oo miskiin ilaahay oo halkaan fadhiya kulay wax un baa la sheeg doonaa mo markii wixii la sheegi jiray wax kamid ah oo kasii fiican maksii fiican caawa Cabdilcasiis Axmed Barrow oo hadii aad barnaamijyadii siyaasadda ama wararkii ama barnaamijkii subaxnimo aad ku barateen caawa waxa uu qayb ka yahay barnaamijka baraha bulshada RTN oo inta badan baad uga barateen hadii ay tahay falanqaynta ku aadan maxaa toddobaadkan laga hadalhay dhanka iyo baraha bulshada sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadka taagnaa ama dadka ay noo soo diraan Barrow haye soo dhawo marka Farxiyo Cabdalla dad ma hadsan tahay la barnaamijku habeenkii waa barnaamijkii baraha bulshada oo aan u maleynayo markii ugu horeysay inaan gambaradiisa ku fadhiisto waxaa la maqtaa kursi lama dhaho gambar Allah kursi waaye adi kursi oo taqaana ma ho maya gambar waxa la dhahaa afarta lugood mid kale sheeko kala ku haya haye markii loo tartamayo jagooyinka waxaan dhahnaa kursiga madaxtinimada kursiga kuraasta baarlamaanka kuraasta aqalada hoos waxa baa sheegnaa moogtaa gambarka madaxweynaha loo tartamaano dadka markaa joogto macnaha marka taas waxay ku tusinaysaa in gambarka iyo kursigu isku mid yahay isku mid maaha annaga Soomaaliya leenahay gambar leenaamo kursi caraba iskale oo marka annaga maxaa u dhahnaa kursigii baarlamaanka kursigii maxay tahay ra'iisul wasaaraha kursiga madaxweynaha xaas caraba ka keenano ra'iisul wasaaraha magac u bixaad waa kaasa ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ka yar warganadistan ama waqooyi bari ayaga taariikhdii noo haayaba marba hadii leeyihiin gambarka markayna gambarka madaxweynaha gambarka baarlamaanka gambarka xildhibaanka ayaa loo tartamayaa marka istan marka magacyada gudoomiyaasha ka waran ayagana Barrow magacyada gudoomiyaasha iska caadi gudoomiye moogtahay barasab waa ya wala iska dabayay luqad kale gabanaga wala iska dabayay luqad wala isku haystaa aad iyo aad caawa baraha bulshada ayaad fadhisaa oo aad tabintiisa qayb ka tahay mar haddaad adiga fadhisana barnaamijka anaaba marti ka noqonayaba maya ana marti caawa baraha bulshada ma marti ka noqdo barnaamijka ana marti caawa baraha bulshada markii la soo hadal qaado waxa arkaa ma taqaana maxaa kugu soo dhacay waxa igu soo dhacayo sheekadii waayidan ugu badneyd horta waa badan sheekooyinka baraha bulshada yaala laakiin isbuucan xiise gooniyaha jiray iyo meel gooniya lagu suntaa mugtaa hadii Farxiyo Muumin ee warka akhrinayso Xuseen Shiina oo soo saaray yahay Barrow iska maqnaado maqasho caawa marka barnaamijka hadaa ani daadinayo adigana aad fadhisid ya socota warka Big Barrow raadinaya way ma doona Big Barrow intaanu ku dhinahay iska maqnaado waa imaanaya iska maqnaado ninkaas ayaantan horta toddobaadkan wali marka laga hadlayo toddobaad waliba sheekashadan marka baraha bulshada la dhahayo toddobaadkan waxa qof baa wuxuu leeyahay aniga intii jecel mas intii nacib intii jecel hadaan haysto waa igu filantaa intii nacib ha iska maqnaato marka toddobaad waliba waxa taagan kulay wixii baraha bulshada laga hadlayo waxa xaq u leh lahaanshiyaha ereydaasina Maxamed Saciid BK ereyadiisa ka yimaadeen oo fanaanka bixiyay ayaa qof walba aad moodaa inuu kiskis qof walba nooc ka soo qaatay qof walba meeshii taabanaysa marka ayuu wuxuu kaga dhigay ciwaan kaga dhigay haday tahay friends haday tahay walaal haday tahay family haday tahay dhul haday tahay wadan marka Maxamed Saciid BK moogtahay waa fanaan Soomaalida waxay tiraahdaa fanka iyo abwaaniinta dadka ah ee wax curiya ummadda kale u qareenayeen waa qareeno aan lacag la siin ummadda kale u doodo marka caawa muruga ku hayso ama jacayl meeshii soo galo waxa raadinaysaa hees meesha ku taabanaysa ka hadlaysa yaa u sheegay abwaanka dibkaas adiga ku hay
bulshadu ka turjumaya waa qareen maxamed saciid bike marka siiqo waxa uu siiqa yar ha uu keenay marka uu dhex keenay dadkiisii uu qareenka u ahaa marka wuxuu yiri sidaa doontaan oo akhriya cid kasta marka waxay akhris meeshii bugtay ku baanaysan qof walba ha sidii uu qaatay aad iyo aad hadda ishaan la ahay haddii aa ilay leedhihi jira oo kiyaala hadda haysto dadka indhaha waxba ma dhaamaan ha qof walba marka sheekadaas dadka sidii u mari jireen ayay hadba dhinac u aadi karaan marka waliba tii waxay ahayd aadka loogu hadalhayo qof waliba uu soo hadal qaado sheekooyin kale xiisaa lama taqaana walaalayaal siraadka inuu ilaahay kugu badbaadiyo in maalinta aad xasanaadkaada u bato subscribe yeesar arinta youtube-ka bismillah halkaas ugu badan waayahay arrintaasna waanu imaan doonaa barow caawa barnaamijka xoogaa waa uu ka yara gedisan yahay toddobaadyadii aan soo dhaafnay dadku toddobaad waliba horta baraha bulshada waxay uga burteen inaan ku daafurno heesta markaa toddobaadka ugu shidan ama loogu daawashada badan yahay dhanka youtube-ka ama haddii ay tahay dhanka kale baraha bulshada dadku ay aad u daawanayeen inaan kusoo qaadano laakiin caawa waxaad moodaa heesihii in laga soo bedelay sidii hore oo xagee loo wadaa qaybihii dambaan aadnay gadaal qaybihii dambe waxa kaa keenaya xataa dadkii hadda oo modelkii hore qaataan ku haya ma xasuustaa waagii gabdhaha ay yaraayeen xasuusnaa mugta hadda madaxa taakaa ku xiranaya kuleyn mugta alaab kuuskuusano intaanoo kale oo 14 13 madaxyada loogu xiri jiray ma la socotaa 14 13 alaab caagada ka sameysano madaxa loogu xiri oo isku xirxiran ayada is wadata ayaa dhinacyo aad iyo aad hadda dib loo xiisan doono caawa markaa sheegnada raadin doono ugu dib aad marka caawa barnaamijka qaybo kamid sidii hore waa uu ka gidisan yahay qaybihii kabanka ayaa barnaamijka qayb ka ah playback yaan ka soo tagnay ya haddii aan maqli jirtay fanaan hees inta loo daaro wata flash afka bisaan ku dhaha caawa ka imaanayna caawa iyadoo live loo heesay barnaamijka qayb ka tahay heesi doona live loogu qaraaci doona fanaan kastana wuxuu soo bandhigi doona ma taqaana tayada fankiisa iyo hibada luqada uu leeyahay iyo sida uu wax u qaadi karo isugu kalsoon yahay sababtaan u dooranayna wax kale ma ahan toddobaadyadii ugu dambeeyay baraha bulshada waxa ku soo batay in qof waliba uu isagu markaa qiiro gaara ay ku hayso ama si gaara ay u taabato heesaha kabanka oo dhanka facebooka ay aad ugu soo sharaxaan ariix caawa hees waxaa jirtay si gooni aan u dareemo mararka qaar Faadimo Dembel baa qaadi jirtay baha u naxariista dhawaan bay geeriyootay heesta ereydada waxaa kamid ah ma taqaanaa gaarabidhaan weliga wax ma ku baad goobta horta gaarabidhaanka ma aqaan haddaan hadda ay dhihi doono gabadha dhalay wariyey weyne meesha fadhisaa gaarabidhaan horta waa cayayaan yar duula markii uu duulo intoo kale wuxuu ka shidayaa nal yar ee iftiimaya briq oo ha ka siinaya haddana tallaabo camal meel u jirto briq ka siinaya gaarabidhaanta noocaasa elayska ay bixinaysa waxaa lagu baadi goobayaa ma taqaanaa qofkii la jeclaa meeshuu joogay awooddaas ma ma bal heli kare dhul roobaa la socdaa se gorma leela markaa ka soo yee homework waayahay marka maadaama caawa barnaamijka marka kabanka uu qayb ka yaho social media-ga aad ugu soo bato qof waliba heestii kabanka ahayd dareenkiisa taabanayso oo akoonkiisii soo dhigayo saddex meel waliba heesaa ka wada Australia waana looga soo heesi doonaa kow garow waa laga heesi doonaa labo meel taa soo qaadano gurigan ma ka tagi karnaa markaa ma ka tagayna waa inaan soo qaadana fanaanada waxay leedahay ar ya reer Nairobi oo sida u heesi karaan ayada maan ku daafurano marka waa meeshaan joognay iyada ku daafurano aan ka helina dadka kale taas waa qasab waayahay waa nimca happy heestii Allah u naxariisto Faadimo Dembel ayay qaadaysaa gaarabidhaan baan hadba meel ku gaaraa daawasho wanaagsan cali shaacir ayaa u garaacaya
ma geeriyo wadle ee baan ku gunaanad seega maya de gabar Soomaaliyeed meel loo qoraa dhimasho maya inay god ku dhex oyso waliba waxay leedahay gudigii jacaylka ay gargaari waayo godka inaan ku ooyay taladii ku gooyay ha ayaga laftirkooda bal arinta maxay wax uga gali waayeen gudi jacayl ma jira maanta xanuun jacayl adag gudi sax ahoo maya maya ma jiro hay de abwaanadii fanaaniinta maxay soo daweeyaasha caashiqa ma ويهين لكن قف هدو ما أنت شعيل سكرادو أو ميل ولا تشيفه أو دينا عسو كعواية أو بيها أفكار لوجلي ولقواية يا جودي هو مركا أنت كجر هذا مركا أوجيني يقف كي خلاص كجل مشرو
kii dhibka geysta la baadi goobaya ama tii dhibka geysata guddigii baadi goobinaya aawe la baadi goobaya la isaga ma harayo ee qareena loo sameyn doonaa ogow mar dhow qareena jacayl ayaa iman madaxa doona lagu taagaya dad badan mar walba ilaaw ma yaa qareen jacayl noo sameeyo adiga ma noqolay may qareen jacayl ilaahiga ma dhigo bata cabdilcasiis barrow nimca xabbi waxaad moodaa in fariin qurux badan ay u dirtay fanaaniinta reer Nairobi ay leedahay war waxay leedahay Way hadii ka. war aniga banaanka dhigay cadeysta fankayga hibada luuqda iyo tababarka aan leeyahay aad iyo aad intaa iska dhigtaan flaashyadan iyo memoryashan aad teleefanada ku wataa ha saas oo kale banaanka soo adeer dhiga cali abuukar shaacir iyo jinni shumita u tagtaan bal xaqiijiya inaad inaad wax un fanaaniintihiin marka kule fariinta dad badan bay taaban doontaa oo hore uga jawaabi doona roba iyo stuudiyaasha codadka lagu kala bedelay joojiya waa tahay intaas ka badan sii sheegi mayno qaybaha hore u jawaabtana sugi doonaa weli waxaan ballan qaadaynaa inaan sii dayn doono soo ma aad iyo aad aad iyo aad carwaakaas ah fanaan Nairobi jooga oo ku soo heesa kaba kulay inay ku heesaan waa laga yaabaa laakiin ma aan garan la karo soo in duubin yar soo ma oo- dhici karto barro ma garan karo in yar oo ay ka mid yihiin xasan cagaaran iyo badmaceeye iyo inay ku heesi karayaan laakiin weli si official ah looma arag ahey fagaaraha farda la isku hayo layskama faasho waa tahay intaasan kaga soo laabano kaftanka qaybaha hore baraha bulshada ayaan ku jirnaa oo caawa markaa xiisihiisa gaarkaa wato barrow horta hadda markay heesta socoto waxaad moodaa inay si gaara adiga ku taabanaysay laakiin sideedaba heesaha markaa kabanka ah marka loo yimaado waxaad moodaa marka aad shidato oo dhawaqa heestaa ay dhigtaada ku dhaxdo in xoogaa qofkii qalbiga u yara degayo marka dadka qaar ba waxay dhahaan ma shaydaana maya shaydaan maaha haye horta moogtaa reer guuraayaan naha anaga haye reer guuraagana markii baadiyaha la joogo durbaan baa la qaataa waa la ciyaaraa xilliyada barwaaqada ah marka ruuxiyada nafeed baaba iska jecel in marka dhooqyada maxaa iska dhigaysataa sax marka wax shaydaan leeyahay waa tahay qofka waxaa laga yaabaa inuu caawa murugaysan yahay ama si inuu u diiqadaysan yahay ama uu u xanaaqsan yahay ama wax uun u dhibsanayo waxa laga yaabaa qofka haddii agtiisa hees kabana laga shido in ay qofkii oo nashaad dareemayo waxaan ku dhahay dhaqdhaqaaqaayo marka waa ruuxiyada dhaqaatiirta cilmi nafsiga ee maanta dunida jooga ma ogtahay xarkaha cuudka iyo kabanka waxay ku daaweeyaan dad stress la tacbaan aha oo meel la geeyo la waayo daawo la siiyana la waayo qofka sariirtoo dul saaran yahay waxayna ma taqaanid marka waxa kabanaha loo shidaaya waa soo fariistay shawr biyo kale lama ka socdo waayahay dhanka aan u soo noqono youtube-ka iyo arrimihiisa halkaas la isku magale haye baabkaas waa baab kale caawa aan dadweynaha dhalada hor fadhiyo horta farxiyo ana waxa ahay dadka tacliiqa ama commentiga dadka ay soo qoraan ama faallooyinka hoose wax marka la soo geliyo aad u akhriya marka sheeka aan arkay xiisaheeda waxaan leeyahay talo dadku sidee bay uga falceliyeen sheekadan quruxda badan one side waaye marka dhinacaan hesho dhinacii dadka waa in aragto fanaan baa hay soo gelinaya waxaan leedahay fanaankan sidee kula yahay ama in buu kula yeelan karaa ma codkiisa ku cajab gelin karaa waxaad raadinaysaa marka bal dad kula mid yihi inay faalla reebeen oo isku fikir tihiin isku fikir tihiin ama in kaasoo horjeedi karta in la helayo laakiin meeshii aynu ka eegi jirnay faallooyinkaas in la helo waxaa uga tegaysaa ilaahay siraadka inuu kuu fududeeyo subscribe yasar mid kale wuxuu kula mataqaanaa siraadka qiyaamaha inuu ku badbaadiyo subscribe yasar mid kale waxaa ku leeyahay hooyada iyo aabbaha iyo awowgaadii dhintay ilaahay inuu u naxariisto subscribe-ka ayla dhaafin ilaahay inuu ku cadaabin ilaahay inuu ku cadaabin markii hore horta arrintan waxay ahaan jirtay dhanka facebooka facebook ma ka jiray ha ii share gareyda facebooka ayay ka jiri jirtay iyo laagta waxaa lagu leeyahay mataqaanaa haddaad ilaahay jeceshahay rasuulkiisa jeceshahay oo qof wanaagsan aad tahay waxaa la soo agdhaya marka sawir yaroo xumaan badan iyo sawir kale adigoo laag saaran ha dhaafin haddaad dhaafto shaydaan aad tahay macnaha laga niyada ka saar hadii la yiraahdo hor laga sii socdo niyada la gareey waqti iyo ii share gareey kadib waxa soo baxday arrintan horta YouTube marka laga hadlayo waxaad moodaa waliba bilooyinkii ugu dambeeyay aan dhahayn in lacagta waa noosha Soomaa kuwa argay xataa kaamiradu dhibayso horta Allah indhaha isku qabanayo aad moodaa inay hurdoonayaan oo macnaha dhahay assalaamu calaykum asxaabtayda xog iyo sheeko waxaan idin hayaa biyo kama dhibcaan watertight
marka waxaa ugu daran horta qof baa wax iska soo duubay taana horta waxa keenay YouTube-ka dadka ay aad ugu soo bateen akoonada samaysanaya YouTube-ka malaha lacagta la bixinayo waa soo ma lacagta YouTube-ku bixinayo laakiin lacagta si fudud laguma helo sidaad ogtahay barowga horta maxaa lagu horta lacagta la wada raadinaya bilaashka lagu qaato see lagu helaa bilaash ma lagu qaataa horta كله لعقته بلاش ماهن جهدي بحنسا مقال بدوبسا وايد جرينسا كاميرا كهرتالا أما كاميرا بد صاحبك كاميرا هسورة سنسا موبايل كذي باشر تو قعدت لقلنا وسورة سنسا أرت أنت سو جهدي وقت تايمك هاجا بحاي واحد فكر يسوي أتقلين لهيت محن عاو قليا كذب يوتيوب كاس وحو كهربا إن أديك أتكسر بحده واجبات كيس كو أدنى policy شروطها يسووا ليه إن أتكسر بحده أو ليه قفكي وإنه طبعا كنا أو هيسته views أما طبعا كنا قف أي دعوة شيء كويك يوتيوب كله حرير أسبوع على مقاش محاكو يا بدنا وضعته وحيقول يا بدنا يوتيوب مركل لقى هذا قف يوتيوب سمستي أيه مايا وش ويبدين لكن جبر بن حبين إعلان كسارني markaasay waxay tiri farxiyo waa ku salaam abaay hadii ma aha meesha isku barnay meesha bay cilaanka gabdhaha saaray kamid ahayd adiga ana igu soo aadeen cilaan ii saarto waxay dhahday saaxiibay caawo meeshan igama tagaysid anigoona YouTube samaysan waa gabadhii cilaanka saaray aniga cilaanka aniga marinaysay oo YouTuber noqon doonto hadda YouTuber ay noqotayba gabadhaas marka waxa ay gabadha marka waxa ay okay YouTube baad samaysatay ayaad samaysay marka waxa Gmail ma leedahay YouTube waad leedahay ma jirto Gmail waan leeyahay laakiin YouTube ma lihi caawo waxa waqti time badan igu qaadatay inaan ka dhaadhacsiyo dad Gmail leedahay YouTube waad leedahay ugu sameyn karaa is oo lagu active gareynaya active ma jirto caawa in YouTube aad ii samaysaa marka waxa ay okay YouTube hadaad samaysatay bal maxaad soo gelinaysaa marka waxa la yiraahdaa cilaankan saare iyo waxaan dadka u saarayaan maanta saa ugu soo guray soo qoro lacag kama helayo horta markaan furto beena lagu sheegayaan lacag ma hela harta marka lagu cadcad cilaanka la saarayo inay bulshada tusto aad iyo aad marka isla markii adaa time kaas ay soo dhigtay waqtigaas ma xirta inay horey lacag ka hesho lacag laga helo marka dadka horta qof baa waxa laga 10 qof 20 qof ee maanta YouTube samaysanayso 10 kamid ah Soomaalida waxa laga inay aaminsan yihiin video ugu horeeya haday soo galiyaan wala daldalaya dollar in dollar ay daldal laakiin arrintu sama waa Soomaalida qariibka qurbaa ku waxaad qofka markuu YouTube samaysto wuxuu bilaabi doonaa yani waxa la arki jiray in YouTube la samaysto muuqaal la soo geliyo time ku baxo adiga dhaqaaq badan kadib sanad kadib uu ku kaco laakiin hadda qof baas wuxuu ku leeyahay ilaahay daa ka cabsanaysid ama qof wuxuu ku leeyahay comment hoos kugu soo qoraya mogtay wuxuu ku leeyahay inta aragtaa muuqaalkan inta aragtaa maadaama aan ugu soo horeeyo hayla dhaafina subscribe-ka isbiiriya waxa kale oo yaab lahaa farxaan cilmi muxuu soo qoray isbuuca ninkii shaaxooda cabeen muxuu ku yiri mataqaan hay inaad yarhaa seetahay xaaladaada nabad soo farxaan ma yahay ma horta YouTuber inaan noqdo ma maqash sheeko dhan uu soo qoro uu soo dhigay Facebook oo aad ula yaabo qariibsaday wanayo ma YouTube-ka noocaas inta gashay subscribe iyo saar مقايدي شاحة فرحان اللي مركا مقايدي شاحة أي لو قادنا أديه يقولي شكله كلو يابلو حان صاحبك وحيري صاحبك وكلابا يوتيوب سباستي ولي فرحان تيس وحي ورهادي هادنا ديبك soo xasuustay warheede walaalo waan ku qasaya wuxuu yiri telefoon baas kaga hadlay maanta oo dhan howlan ku jira ku walaal macaan raali noqo inaan ku qasay marmar dib male soo firis walaal soo firis markuu firis shiruna ka soo baxay kooxu shir kula jiro ka soo baxay kooxda subscribe laga qaaday waa asaasan u fahmay marka madaxweyne waxaan soo weeyay wiilka maxaa ka qaldan maxaa haysto duruuf muxuu ku sheeg dara walaal YouTube baan furtay subscribe-ka igu caawi نصاحبكينا وحنا كلا صاحبك با يوتيوب يوتيوب كي مركي او فرتي شيكدي ugu yaab kaleed waxay tahay cid subscribe u saarta ayuu saddex bilood un buu ag fadhiya xubuu galiya cidna ma daawo zero view la ilaaha habeen boog daawo la arkaa 2 view laba meel oo ka soo kala daawaday isaga cid kale isaga bas wahay habeenka dambe 8 saac inta soo kacoon marka shaqo ruuxina waa jeefalaya caawi koodhe YouTube kana maankeygo gada malaha si aan yeeli kara malaha hay waxaan sameynayaa hal mid mana awoodanayo maxaan sameeyaa hay maxay tahay maxaa dhacawa wana waxaysa banaanka inta istaago guriga cidda guriga ka soo baxda ma yiraahdo YouTube ka subscribe saar daba qeyrtiisa fadhiisanay sheekaas baa maqluub wuxuu yiri waxa dabaqa degan oo dhan aan banaanka keeni lahaa hal mar soo daadina oo dhan markay banaanka u soo daataan dhulka imaadaane
موبايل أنا وتاودا دبكن خلاص وسو بوحنا سبسكرايب طبقة مسقفة دقنان كرتو ترى ذيك بطين طبعا اللي حتى طواف لا وهاجاك شيكوينكي يوتيوبka todobaadyadaan aadka ugu xiisaha badnaa halka aan kaga soo laabano wali waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena baraha bulshada الله كمان كيا لسودية روحية إن لا لولو qalbiyada la dejiyo wali magaca lagu heesi doono muxuu qaali ugu yahay ma taqaana hay ninba moogtahay jawaan hadii lagu heeso ninba qaali u noqonaysa sax aad iyo aad taas aan beenahay innaka sare wuxuu yiri mid uu calmado oo cudoonta waxaan soo qabanayaa fanaanka reer Garowe Saciid Qalin la yiraahdo Saciid Qalin la aad iyo aad ani kale fariin dira ku dhiisoleen in aad yarayo naga daaya tanagidan aad meelaha ku wadaane banaanka iskeena waa tahay caaw fariimo badan la dirayaa Garowe nin baa jooga caawa fariin buu dirayaa waa Saciid Qalin leh iska waxa la yiraahdaa hodan rag baa u tumaya waa tahay farda haayo la isku faash maxamed xusheed ma uu kala baxaya sida hay ودنقولي عرقتي دادا أشقراري المعطاي ودنقولي عرقتي دادا أشقراري إلى أبطاي وباحفتي مرور يتشوغن مركن كوي قبا إلى إكاتي إيمان كديغي نفتي دنوم عبال بيزو وباحفتي مرور يتشوغن مركن كوي قبا إلى إكاتي إيمان كديغي نفتي دنوم عبال بيزو عدا عيني دمر انتو يا هاي كإشارتي هاي غير دوبيني أكتي بجو هاي غير دوبيني أكتي بجو عدا عيني دمر انتو يا هاي كإشارتي هاي غير دوبيني أكتي بجو هاي غير دوبيني أكتي بجو عينوديgu abuurtan adkaysan waay umaruhoney urubja caynoodigu abuurtan adkaysan waay ado alleylkii igu lamaano agtayda jiifan uma la toose إيمان كديغي نفتي للرومن عبالو بيسو أدو الليلكي يقول لمانو أكتيد جيفان هم اللطوسي أراح دا ديريو ودنا أكيساد أقل كليدا عيني دمر انتو يا هاي كإشارتي هاي غير دوبيني أكتي بجو هاي غير دوبيني أكتي
agtayda joog ayni dumar intuu yahay kaa ishaarti ayga irdhoobine agtayda joog ayga irdhoobine agtayda joog ayni dumar intuu yahay kaa ishaarti ayga irdhoobine agtayda waa hagaag halkaasaan kaga soo laabana kabanka iyo garoowe oo u barow ina geeyey caawa iyo weliba Siciid Khaliil maxaa tiri raganimo fanaadi maxaa tiri rijaal waayahay hadba meel baad nageynaysa hadda Nairobi aan joogno waa naga qaaday waxaa nageysay garoowe meel boona ku geyn doona saacadaha soo socda daqiiqadaha soo socdana Australia alla maxaa ku taantay inaan tagaa soo taanta waan ka soo noqday soo laabato إلا ولا شيء زمي يبيك برو واتجي وارك صلابتي هذا بوجهك يا هذا بوجهك ما يوم كسر نقطة هذا ملبون هذا دوان كيمي تيفيدا ملبون كيال هذه الله شيء فهي عبد الله مونوي دحفر أساسه موجودة مركا حق وهي هاي أنكسو لابنا فنان كاسو أو أساق بفرين ودري فنانين تكلا الرجال وعاو فرين على دري أنا قلبت كانوا أنا فرين مدرنا وأنا كم حافرين وابدتك مسكوب بالله من هنا وهجاك هذا برنامج كوجرا كهيدا هذا حس بانسوس سميه موسيقى هو كان أفكا ميكروفون دوينه أرتو حلا هذا الميكروفون كم فرنا فر مركا عدك ولا حرا يا موتا ولما حتى كارتة الله سماه متخانة مركو بنا قال يا موسيقى أنت فنان كديرة عدك وسان لي الميكروفون كله فين والله فوفا يا عن عد إنه قد بنا إنك الله يسجع حقيقي كوس الله بعد بابا موت ها الدنيا ذا مؤكتة فنان كهدي dadku marka show markuu qabto ay tagaan dadka hadii fanaanku uu qaado hal heeso playback lacagto celis waa qasab dadku lacagto waa inuu daalaa in live loogu raaxayo codkaada la maqlaa si toos ah u sheegi karaysaa waxaan filayaa in fanaaniintuna fariimaha caawa iyaguna ay daawanayaan ama ay gaari doonto ama loo sheegi doono ee fariimahana kulay baro waa diraha igu diray fanaaniinta waa ku jirtaa soo adiga ilaha in badan oo aqaano fanaaniin inay yihiin ugu dhibo waan dhihi rabaa adeer barnaamijka iskana aniga dhahay goormeena waa nolol kala garaqaadaya dambiga gelinaysa war kaliya waxga sheekooyinka aad inoo soo dirteen idinkoo magaalooyin kala duwan jooga ayaan caawa galeynaa waliba baro baan ku hormarinayaa caawa maadaama isagu barnaamijka marti ku yahay taabintiisa horta sheekooyinka la soo diro seedu aragtaa oo barnaamijka la soo wadaago baro xogaa baan firfiriyo mugtaa haye waxaa leedahay dadka markay waxaan soo qorayeen nooc sidee abay u fikireen qofkaasi mugtaa buugaagta markii la qorayo ama sheekooyinka ama riwaayadaha la sameeyo qofka uu qaataa humaag ama suureyn ayuu ka qaataa sheekadaas qurbaha lagu batay imagination markii oo qofka sameynaa marka wuxuu ku deynayaa meel oo sawiraya sheeko dad buu dhaxdhigaa sheekooyinka qaar marka fiiriso waxaa leedahay malaha qofka sheekadan markuu soo qorayay suureyn noocan uu qaadanayo waa abwaan smoke iyo maadeeyo aan is ogeyn dadka uu u shactirayn karo marka sheekooyinka caawa ahayna dadka aan soo qor waxaan idin leeyahay ilmaada reer YouTube inta furataan dadka u shactiraya ninkan bixinaya wali dadka qaar oo markay ii soo direen aan weydiiyo waxay dhamaan taqaana sheekada ana soo fikire kuwa YouTube furtaan marka kuwan hadda waa inay YouTube furtaan waaye baro mana ka hormaramse hada lor sheekad wadataa aday qaadatan u horeyso waaye lor sheeka idinka ii soo dirteen waayahay sheekada ugu horeysay caawa nasiibka u yeelatay inaan baraha bulshada ku aqrino saamiya cabdiraxmaan ayaa sheekadan inoo soo dirtay saamiya waxaan ku noolahay dalka Norway ayay tiri hayaay waan idinka soo salaamayaa bahda baraha bulshada sheeko dhacdo run ah ayaan idin hayaa maanta farxiyo iyo tiimka kale ee barnaamijka tiimka kale baro waa ka jooga saaxiibkay big bro caawa waxba idin qarinaya laakiin hadaa idin sheego
waa wacaysaan toddobaadka dambe uu sheegi doonaa laakiin wax la qarin kara ma ahaba aa waxaa u malayn albaabo furnaa inay soo xirmi doonaan xirmaan hadday rabaan waayahay sheekadan gabadhan saamiya ay noo soo dirtay waxay tiri xariif ciyaalka xaafadda ka mid ah ayay tiri ayaa iskuul ka soo daahay maalin maalmaha ka mid ah waa xariif ciyaalka xaafadda ka tirsan ciyaalka xaafadda ciyaalka xaafadda marka la dhahayo maxaad ku micnayn kartaa ciyaalka xaafadda ciyaalka xaafadda xataa odayaal qof baa wuxuu ku dhahayaa markaa dhahday war mas-uul ama dhahday gabadha maya aniga ciyaalka xaafaddan ahay dee waxa aniga dadka kama weyne ha iga saarinaha ha iga saarin marka haddaba iskuulaa la xirtay la yiraan wax badan ay ugu soo ha hey xariif ciyaalka xaafadda ka mid ah ayaa iskuul ka soo daahay maalin maalmaha ka mid ah macallinkii ayaa intuu ku dhagay marka iskuul laga soo daahay waa taqaanaa banaanka loo soo saaraa la yiri haye waxaana la weydiiyey sababta uu ku soo daahay xariifkii intuu soo booday ayuu wuxuu yiri aabahay ayaa walaalkay tuma ayuu dhahay aabahay ayaa walaalkay garaacay Walaalkii la wiilkii garaacay. aniga iga yaraa haye sidaas ayaan macallin ku soo daahay taasi jawaab maaha waa la isku haystaa marka waa la isku haystaa macallinkii ayaa intuu soo booday wuxuu yiri adiga maxaa kaa galood isaga soo bixi weysa haddii walaalkaa la garaacay adi maxaa kaa galay haye waad u sugaysay xariifkii intuu soo booday kulaha see usoo baxa kabteeda lagu tumayo dha aniga walaalkayga la garaacayo dhahay kabteeda lagu tumaye gabadha marka sheekada soo dirta waxay soo raacaysa barow haye marka waxay tiri waxaa iga tala ay dhahday waalidiinta Yaa haddii kala ilmaha kabaalo. aad tumaysiin ay dhahday maya haddii aad tumaysaan ay dhahday oo aadba dhaafaynin ay dhahday ya almiina kabihiina ku tumay dhahday idinka kabihiina wiina ku garaaca si kuwa kale iskuulkaysan uga daahin allah waa sheekayabkeeda leh waa hagaag kaba haddii la isku tumayo sheeko kale Waa sheeka hagaag. gacanteeda ku jirta waxaa soo diray nin la yidhaahdo ibraahim cali jimcaale waaya ibraahim waxaan joogaa buu yidhi minnesota aad baan idiin salaamoo yidhi asxaabta dhammaan sheeko yar ayaan idin hayaa sheeko aad u yar waaya walaalow sheekadan maxay soo wadaa waaya bal aan akhriyo rag badanaas lagu dhegan yahay sheekada laakiin maxaa ku jira mataqaanaa dhooninimada hablaha qaar ay qabaan alla maxaa rag dhib lagu hayaa waaya wuxuu leeyahay mataqaana xariifkan wuxuu leeyahay xariif baqiil ah oo maadada xisaabta ku dhiban baa Aad iyo aad. macallinkiisa ku yidhi waryaa hebelow adigoo haysta $200 lacag dhanba $200 ka haysta $200 lacag ka haystaa ninkaas waaya lacagta ma haystaya maadada xisaabta macallinka un baa dhahaaya tusaale adigoo lacagta ma haystee xisaabta ayaa macnaha lagu weydiinaya lagu weydiinaya waxaa la lacala laga hadlaa marka lacala $200 haysataa okay ya marka wuxuu yidhi haddii ay girlfriendtaadu waa saaxiibtaada caashiqa aha ay ku tiraahdo $100 baan u baahanahay si degdeg ah horta ma jeedaa meesha laga bilaabaya sheekada war yaa ragga iyo dumarka kala qabta haye wuxuu waxaas waa caadi walaashaana ay ku fiiriya gabadhii maxay weydiisatay ninka $200 lacag la haystaa haye lacag dhan ma haysto lacagta meequu ka haystaa maba haystaba laakiin lacagi lacag meequu haystaa marka $200 gabadh maxay dhahday $100 lacag ila $100 sii rabtaa ugu ya maxay u rabi weyse waa caadi iyaga ka dhaxaysa haye iyo ka dhacaysa haye la isku soo galay waaya walaashaana ay ku dhahdo kulaa macallinkaas sii hadlaya $50 oo degdeg ah u baahanahay waa la soo degay moogtaa 150 konton walaashiisa u baahan ninkaas meequu haystaa lacaladii meequu ka haya oo hadduu intaa ka bixiya $50 bis waa haystaa weli waa las haystaa haye marka wuxuu dhahay adeerkaana uu kugu dhaho $30 oo degdeg ah hadda Acuudu telefoonka billah. ii soo geli labadiisii boqolaaba loo soo dhigtay oo lacala bay ahayd haye macallinkaa markuu su-aal weydiiyey nin imisaa haysataa buu yidhi intaas markaad $100 iyo $50 iyo $30 ka bixisid imisaa haysataa haye adii jawaabta maxay kula noqon lahayd xisaabta iskuma fiicin waa la islaacaabo haye marka wuxuu dhahay macallinku wuxuu yidhi imisaa kuu soo hartay ha ilaa xisaabtiisa fahamka xisaabta la ogaanayay dad fara badanoo hadda fadhiyo calculator aan waqtiga si xisaabayaan ogaanigii waaya wuxuu ku soo gabagabay xariifkii kulaha macallin waxaa haystaa $200 iyo 3 message oo aan weli aqrin laa boqolaba meel laga gaaray 3 message aan weli aqrino aan furin $200 labadii boqol ma haystaa u dhahay ah waraakaas waa aqli badan yahay
ma aqli badan aad iyo aad Jeebkiisa. ma furayo dhaa fariinta ma fiirinaayba yaa haddii la isoo diray markaan furo leysoo lama arkaayo weli waa kayd waa la haystaa la 3 fariin oo aan weli la akhrin iyo labadeeda baq wuxuu labadeeda taagan labada baq. baq markaa dhameeyaan fariimaha furaa talo jeebkiisa hadii la baaro maxaa laga helayaa fariima may lacag kuma jirto moogtahay fasalkii uu dhex fadhiyaa waa bilaash baa Bilaash waay. dadka sheekooyinka ay soo qoraya qaar waa mucjiso moogta dadka qaar dad badan is cajiib. xisaabaya caawa yah alla maxaa sheeka haya iwad okay qofkan sheekada ila soo wadaagay dhanka iyo Facebook uu igu soo diray wuxuu ku bilaabay qofkan farxiyo abaayo waxaan kaa codsanayaa inaad sheekadan barnaamijka baraha bulshada aan kugula wadaago oo aad adiguna asxaabta la soo wadaagtid oo aad ii soo akhrisid ha ka tagin uu dhahay u sheeg wallahi bilaa wasiideynaa u dhaaro wallahi waa deyn weeya waa maxamed cali waxaan joogaa buu yiri magaalada muqdisho magaaladeedii joogaa magaaladaadii magaaladeeni magaaladeeni magaaladeedii Magaaladeedii. anaa isku hadlaayo hadaa isku hadlaa magaaladii Soomaaliyeed ma ha waa lagu leeyamo waa la leeyahay anigi markaan shakhsi ahaan dadku ugu sheegaya magaaladeedii aan dhahaa sama haye wad bal waa yahay waayahay waa laga yeelay marka waayahay qofkan marka wuxuu ku bilaabay barow maxamed waaye beri baa waxaa sheekaystay buu yiri 3 dumar oo la qabo sheekadan barow ina aqriyo ku fiicnaade ko waa 3 dumar haddii la galay anuu sii wadi kara moogtahay may horta dhibkaan ugu haysina la arkaya caawad okay beri baa waxaa sheekaystay dhaa 3 dumar 3 gabdhood oo la qabo Haye. mid kasta waxayna iska wareysteen xaaladaha nolosha ee guud allo yaa aamusa waayahay gabadhii koobaad baa waxay la soo boodo oo waxay tiri jooji waxa gabar maaha waa dumar la qabo moogtaa dumar gabar ma noqoto okay xaaskii koowaad adiga okay hadda maanta soo laga yaabo inuu wiilka hor imaado uu ku dhaho iyagoo asagoo gabar isla socdaan xaaskiisa uu dhaho waa gabadhayda masaa dhalay xaaskiisa waa caadi waa la dhihi karaa adi aabbaha baad gabar u tahay soo ma okay se marka nin aad wada joogtaan sheekadii hadda ka hor hargeysa ka dhacday casiis markaa waayahay wado wuxuu yiri maxaa iraahdaa markaa xaaskii koowaad yaleeco gabadhii koowaad haddaba ninka warkiisa iska dhaafa ani lama qabo sheekadaas iwad ayaa soo bood waxayna tiraal dhahay anigu markaan odagayga xafladaha aan isku raacno waan israacayno xaflad hadayba jirta aan isku raacayno ciyaalka haysato inay ciyaal qabto iyo inaysa qabin yaa kuu sheegay waaba marwo la qabo guri joogto inay aroos bilowta inay ilmo dhashay inay dhalan adiga kuu sheegay hataa bal aroos marka masuuqi u raacaysaa of course dee xaflada diil-aada waa israacaysiin waa iga dhimar adagtiin wada haye baro sheekada baa aqrin karaa suuqa loo wadaa haye wado waayahay haye anigu markaan waxay dhahday odagayga xafladaha aan isku raacayno waxaan ku labistaa dharka madowga ah bay tiri waayo timihiisu waa madow tacsi baa la joogaa iwad tacsiya madow loo xirtaa ku aad madow wadataa tacsibaad barnaamijka tacsiba dhex fadhisaa madow aniga blunefia wata blue navy miya isugu halkaas ka ay fiiriye waa lagu hayaa wallah waa madow wallah aday ku taala blunefia waa waayahay waxaa rabta wado Aye. calay taxal waxay tiri anigu waxaan ku labistaa markaan odagayga xafladaha isku raacayno dhar madow ku jiro camal maxaa yeelay tintiisaa madow madow oo dhuxul ah waaye waxay ku faanaysaa marka ninka ay qabo waa yar yahay ha ko gabadhii labaad baa iyaduna soo booday oo tiri anigu markaan odagayga xafladaha u raacayay tiri gabdhaha sheekaysanaya saddexdoodana waa bal xaasidnimada taagan iyagana waxaa leeyahay gabadh kii qabana odayaa la leeyahay mis qaadan karaysaa cadaalad darrada adduunka meesha ay ka bilaabanayso meesha ma aha asagana wiilaan dhaha markaan wiilkii qaban meesha saas leeyahay dadka cadaalad u sheeg waayahay maxay dhahday gabadhii labaad markaa aniga markaan aadaya dhahday 2 taariikha soo socoto haye markaan israacaynay tiri wiilka i qaba adaa idhaa wiilka ka dhig mugti barfaan ugu xafladaha isku raacayno waxaan ku labistaa dharka kalarkooda uu yahay caddaan waayo timihiisu waa wada cira dhad waa cad yihiin so waxaan ku qasbanahay inaan anigana dharkayga kalarka caddaanka aan ku daro ahey wiil maan dhihi karaa marka wiilaa leedahay ayada ma qabi ayada inaa wax sheegaa rabtaa wad sheegada marka waxay dhahday gabadhii labaad aniga waxaan ku labistaa dharka caddaanka maadaama timihiisu wiilkii qabo uu timi cad yahay odagaya qaba
okay haye maxaa soo haray mataqaanaa haye gabadhii saddexaad la qabay erey dhula soo socda Erey dhul. Waxay sheegi doontaa tan. waxay dhahday waa isxumayso horta markii la soo gaaray ayada xoogaa dhinacay isku jeedisay farxaddii iyo nashaadkii iyo wixii muuqday dhanba dhinacay isku jeedisayba indhaha iyo sanka iyo afir haa Haye. markaasay waxay tiri ani maba raacay dhahday xaflad uma raaco maxaa yeelay timo dhanba ma qabiye dhahday bismillaahi rahmaan timahu ma lahanay dhahday taasaaba ka xanuun badan leh ها أنا مركب واحد على صاحب يلا يديك درا شيكتين لكن أنا أراس مع محايا صاحبك يتم ما قبل هذا صار لعل هذا ضراع على محل كل بسلام علامة السؤال لا وقام يا برو وانت سوى كفتن أدب ما سنتي محمد شكل هذه نوان أخري أدب بينه وحي سبضنيت وأتكم هتصدق dad ma santahay sheeko kale gacanteeda ku jirta ويا caawa dadka la ii soo diray baqiilin un baa la ii soo diraya mugta أوكي aad baad u salaamayaa bay tiri bahda RTN waa Maymuun Cumar oo joogta magaalada Muqdisho waa lagu leeyahay Muqdisho Soomaaliya ها مقالة دي شوكته toddobaadkan waxaan idin hayaa sheeko yar oo qosol leh أوكي talo qosolkaasi muxuu daaray waxay tiri mid doqona sheekada meesha laga bilaabo yaab leh waxay tiri mid caaqa oo doqon ah oo aan caqli badan lahayn ayaa hadda ka hor dukaan loo furay quraansho ayaa nafta u keentay oo sonkortii ayuu ka celin waayay quraanshadii nin weyn oo 20 jir oo dukaan loo furay oo quraanjo la dagaalamayo sheekada yaab kale oo taqaanaa kula saaxiibka waa fikray أيه dhinacyaduu seexday habeenkii waa fikray wuu jeestay quraanjo wuxuu rabaa taatikadii ugu dambeysay inuu oo u dagaal dego inuu u dego waaya ilan sokortii maalin kasta 100 xabo quraanjo amaana 100 xabo sokor la sii wadaa waa minus kulaha nin weyn miyaa quraanjo sokor ka celin waayay Maya. markaasoo qalin beere intuu qaato kulahaas u fikiray jawaankiisa sokorta wuxuu ku qoray cusbo waa la isku soo galay waa nin dagaalamayo ma taatika yar nin horta wuu fikray moogta wuu fikray laakiin taatikoo la yimid quraanjiba waxay akhrinaysaa sonkor waaye cusbo waaye waxaa dhici doona xariif saaxiibkiisa ayaa yiri oo weydiiyey war heedhe jawaankiisa korta maxaa cusbo ugu qortay imaanka Allah kaa qaado ma garashadaad beeshay wax kaa noqotay yaa ma safarta kaaga dhacday ayada moogta wixii la hadlay wax safarta iga dhacday safarta kaaga dhacday intuu qoslo kula war doqoyaho naga aamus waa doqonkii saaxiibkii kula doqoyaho aamus hoos u hadal nagu qaylin he quraanjada sokorta igu cunta marka iidan ka qariyo hadii quraanjada waxa ogaataa cusbo ku qoran ay sokortii tahay waa la kala baxaya marka oo dhamaatay kan waayahay barow gabagabadii aan maraynaa sheekooyinka aad bay nooga qosliyeen farahay ka bateen laakiin timekii ayaa aad noogu yar waqtigii ayaa noogu yar gabagabada maxaad leedahay horta gabagabada waxaan leeyahay saaxiib yeelood mahadsantihiin sidaad sheekooyinka usoo dirteen iyo sidaad noola wadaagteen laakiin horta dadka ayagana wuxuu dareemaa sheegtada ma u sheekaysid aniga marmana u sheekeeya ayaga hataa waa ay ka saayaan inaad been sheegaysid waxaa ka dareemaysaa u suuroonaysid toddobaadka soo socda u sheekeyn doonaa horta intaana ka bixin waxaa leeyahay hadda ka hor reer beled xawaa caawa la galaya mugta waaya mid reer beled xawaa maqaayad ka shaqeey jiray waiter oo ahaa wuxuu ahaa marka maqaayadda markii waa taqaanaa mandheere iyo markii loo socdo tariibkana ay marayeen oo xaaladdu ay ku kululayd adag tahay ha beled xawaa istiraatiiji waa mugta magaalo 3 xuduud magaalo 2 xuduud dal ay leeyihiin dhexdooga taal taala marka baabuurta markay soo istaagaan nin khatara baa jira oo waiter ahoo dadka wuxuu u kala keegay jira alaabta naagtii dambe naagu guursaday naagtii markii uu guursaday maqaayadii baa dad soo galeen shaqadii baa ku badatay booskii u tagay waxna meesha waa ku dhintay koodhi naagan guursaday ciyaal ay yimid xaaladdu sidii hore ma hanay waa dhanaan markiina adeero iimaanka inuu ilaahay kaa qaadi waayo maalin kasta lacagtaan qabataay wax iigu dar wax iigu dar wax sax ogtahay soomaaliduna garashada qaarkood shaqaalahooda qaar uu ku yar yahay inay wax yiraahdaan aad iyo aad markaas wuxuu ku yiri waryaa ha anagoo shaqayso boqolaal baa camal la'aantii gidaarada fadhiyay aad iyo haddaaba intaa yarta haysha nasiib baa leedahay haddii kalena orna iska dhaqaaq saaxiibkaa ma ogtahay way ku adkaata xaaladda lama tegi karo oo meel shaqo laga keenayo ma jirto mana joogi karo lacagta ku yarta lacagta waa ku yartaa saaxiibkaa marka waxaa la yidhi sidee xeelan lagu xagtaa ilkanoo ku nabad galaan hal saxan buu soo qaadaa 4 daqiiqo wuxuu u socdaa qofkii raashinkii waday 6 baabuurna waa timid
odaygii marka safar ah odaygii marka maqaayad iska laayo xaaladdu ku adkaatay waraa iimaanka Allah ka qaado adiga ordi jiray ma socotid ma dhaqaaqay dadka ma naa kala hagaaj maxaa tahay war boos maqaayad ragaa ka shaqeeyay ha igu dhiban inta qaataan soconaya lacagtiisa qaato inta lacagta tartiibkii awgar daf 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 uu ahaa laakiin markii dambe wuxuu bilaabay inuu tartiib lugaha inta qaato aan soconayo wuxuu yidhi isdeji aan soconaya waayay marka qudheedu waa sheekooyinka Soomaalida waa dhib badan yihiin aad iyo aad marka barnaamijkan waxa uu idin sii socon doonaa intaad sheeko soo dirtaan aan leenahay aad iyo aad haddaan soo dirnaa ma socon karo ma qosin doontaan waxaa gabagabadii isla soo gaarnay barrow maxaan barnaamijka ku soo xiranaa waqtiga aad noogu yar horta haddii lagu soo xiraayo oo Garowe aragnay Nairobina faniir dirtay Melbourne baa waxay leedahay iidaaya Australia baan matalayaa galigay wow علي كبان هيس ليرا سجلي أيان dadweynaha leenahay waa idinka waa hagaag intaynu mar kale kulmayno dhamaanta iyagoo isku duwan waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo bye bye
سمينو سمسمي دغدي سقالي Yo. Drop it low. Yo. Drop it low.